waa kuma Erdogan. maanta muuqaalkeena waxa uga hadlaynaa taariikh nololeedka madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. fadlan muuqaalkan hadaa ka hesho like saar, subscribe na dheh kanaalkeena. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu dhashay 26 bisha Febraayo 1954 wuxuuna ku dhashay magaalada Istanbul degmada Kasımpaşa. magaca aabiis waxaa la dhahaa Ahmed Erdogan, hooyadiisna Tanzile Erdogan. qoyska Erdogan ayaa ahaa mid dhaqaale ahaan aad u liita, sidaas darteed Recep iskuulka kadib wuxuu gadi jiray cuntooyin iyo khudaar ay hooyadiis u soo diyaarisay meel xaafadda u dhoweyd oo kubadda lagu dheeli jiray. wuxuu waxbarashadiisa ilaa dugsi sare ku qaatay iskuulka Imamul Khatib oo ah iskuul Islaami ah. Recep wuxuu ka baxay jaamacadda Marmaris kulliyadda dhaqaalaha iyo ganacsiga 1981. dhalinyaronimadiisii wuxuu ahaa ciyaartoy kubadda cagta, wuxuuna u soo ciyaaray naadiga Kasımpaşa Erekspor. ilaa maanta uu madaxweyne yahana garoomada kubadda cagta wuu ka soo muuqdaa. toplarından biri topa bilerek elle dokunuyor. Şimdi Recep Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan attı golü. Defansa iyi işler yapıyor. Şimdi Tayyip Erdogan hızlı olursa tehlikeli. Hızlı giderse tehlikeli. Sol ayağıyla aşırttı, vurdu, mükemmel. Harika bir gol. Süper bir gol. İlk 4 Luulyo 1978 waxay isbarteen Aamine Gulbaran oo ah xaaska uu maanta qabo, oo u dhashay 2 wiil iyo 2 gabdhood. Recep ayaa ahaa nin arrimaha bulshada ka shaqeeya xilliguu jaamacadda dhiganayay. bilowgii xirfadiisa siyaasadeed wuxuu ku biiray xisbigii Refat Partisi ee la aasaasay 19 bishii Juun 1983. 84 wuxuu noqday gudoomiyaha degmada Beyoğlu. 27 bishii Maarso 1994 wuxuu ka qayb galay doorashadii duqa magaalada Istanbul, waxaana loo magacaabay maayarka magaalada Istanbul. waxaana la sheegaa inuu magaalada wax badan ka qabtay, uuna dhisay wax ka badan 50 buundo iyo wadooyin. taariikhdu markay ahayd 6 bishii Diseembar 1997 xaflad uu ka qayb galay oo lagu maamuusayay askartii Turkiga uga dhimatay dagaalkii Balkanis ahaa 1912 ayuu wuxuu ka aqriyay gabay afarey ahaa oo ugu magac daray ducadii askarta. gabaygaas ayuu xabsi ku mutaysay asagoo lagu eedeeyay inuu diinta Islaamka faafinayay, dadkana ku gubaabinayay. gabayga waxaa ka mid ahaa: masaajidu waa hoygeena, muuminiintu waa askarteena, Allahu Akbar, Allahu Akbar. kadib waxaa lagu ganaaxay 1 sano oo xabsi ah iyo 860,000 oo lacagta Turkiga ah, waxaana laga casilay gudoomiyanimadii magaalada Istanbul. laakiin wadahadallo kadib xabsigii waa laga dhimay, wuxuuna ku jiray 4 bilood iyo 10 maalin. sharciga dalka Turkiga oo ah jamhuuri ayaa mamnuucayay in siyaasiyiintu ka hadlaan wax diin ku salaysan. Recep Tayyip Erdogan markuu xabsiga ka soo baxay wuxuu aasaasay xisbiga cadaaladda iyo horumarka loo yaqaano Adalet ve Kalkınma Partisi, loona soo gaabiyo Akbart. kadib waxaa laga qaaday ganaaxi ka saarnaa inuu xil qabto. 2007 ayaa waxaa loo doortay ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga. wax badan oo dalka horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa ka bedelay ayaa keentay Turkiga inuu soo galo 20 dal ee ugu dhaqaalaha fiican ee loo yaqaan G20. 2011 ayuu mar labaad ra'iisul wasaare noqday, wuxuuna wax ka bedelay sharcigii ahaa in ra'iisul wasaaruhu talada dalka hayo. 28 bishii Agoosto 2014 ayaa waxaa loo doortay madaxweynaha dalka Turkiga, isagoo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabku soo doortaan qabtana talada dalka. taasoo macnaheedu tahay in markii hore madaxweynaha laga soo dooran jiray aqalka baarlamaanka, ra'iisul wasaarahana ay shacabku soo dooran jireen. 2018 ayaa mar labaad madaxweyne loo soo doortay, waqtigiisuna wuxuu ku egyahay ilaa 2022. Recep Tayyip Erdogan laga soo bilaabo 2007 ilaa maanta 2020 ayuu maamulayay dalka. waxqabadkiisana waxaa ka mid ah: wuxuu dhisay 235 wadooyin oo ah kuwa buuraha dhexdooda mara ee loo yaqaan tunnel. dhinaca waxbarashada wuxuu dhisay 35 jaamacado dawladeed oo cusub. dhinaca caafimaadka waxaa lagu soo daray 10 isbitaal oo ah kuwa qaabili kara magaaladan. waxa kale uu dhisay 32 garoomo kubadda cagta ah. waxqabadkiisa aadka loo amaano waxaa ka mid ah in la dhisay wado badda hoosteeda maraysa oo isku xirta magaalada Istanbul qaybteeda Asia iyo qaybta Yurub, taasoo loo naqshadeeyay qaab 2 dabaq ah oo is saaran, mid baabuurta soo gelaysa tunnelka iyo mid baabuurta ka soo baxaysa. fadlan muuqaalkan hadaa ka hesheen like saara, kuna soo biira kanaalkeena adinkoo subscribe dhahay.